Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan dhammaan ardaydaydi. Xaggan qaybtan waxaanu ku eegi doonaa compounding pharmaceutical dosage forms oo inta badan laga cawdo inay ku timaado COC-ga. Qaybtani waa qaybta ugu muhiimsan qayb ka ah COC qaybta weliba practicalka ayay inta badan muhiim ka tahay. Marka qaybtan insha Allah waxaanu ku lafaguri doonaa mathematical equationka looga baahan yahay qofka farmasiga ah inuu barto. Horta saan u wada ogsoonahay compounding of pharmaceuticalska ama maadadan compoundingka la yidhaahdo waa maado ka hadasha diyaarinta ama samaynta walxo qacmo ku samaysa ama la iskugu geygeenaya qacmaha adigoo isticmaalaya kuwaasoo dawo loo isticmaalo ama dawo noqon kara. Marka dawooyinka qaar si fudud qacmaha la iskugu dardari karo ama adoo adeegsanaya physically by using your normal hand adigoo adeegsanaya inaad isku dardari karto kuwa aad ku samayn karto markaa weeyaan. Marka maadadan inta badan waxay u badan tahay calculation iyo inaad ogaato xeerarka looga baahan yahay qofku inuu fahmo. Haddii aad dawo diyaarinayso waa maxay shuruudaha qofka looga baahan yahay? Kow waa inuu noqdo qof professional ama noqda qof xirfadla ah. Xirfadlaha waxaan ka wadaa inuu u ekaado qof wixii inuu samaynayo diyaar u ah. Inuu noqdo qof ku labisan gownkii, face maskigii iyo dhammaan macluumaadadii ama waxyaalihii kale ee looga baahnaa. Adigoo duuduuban ama adigoo normalkaagii ah inaad gasho xerada lagu compound garanayo ama laboratoryga lagu samaynayo waa shay mamnuuc ah ama aan unethical ama unprofessional ah. Marka kow waa inaad noqoto qof u diyaar ah inaad xidhnaato gownkaagii, inaad xidhnaato glove, inaad xidhnaato glass iyo sidoo kale kabo dushoodu xidhan tahay ama alcohol ama waxyaalahan daadaadanaya ama ice ha noqoto waxaan aad faraha la galayso inayna jirkaaga taaban waa inaad isku daydaa. Kasta kow intaa waxaa lagaaga baahan yahay shay markaad diyaarinayso inaad ogaato shaygaas inta uu ka kooban yahay. Saan hore u niri marka wax la diyaarinayo tusaale gaaban inoo soo qaato cuntada maalin walba aynu isticmaalno waxay leedahay ingredientyo kala duwan ama shayyo ku jira oo kala duwan. Bariis haddii maanta la diyaarinayo xaafad lagu diyaarinayo waa in saliid qasaac ama saan u naqaano timaatim iyo walxo kale oo aad u fara badan lagu daro si micnihii loo macaaneeyo dhandhan fiicanna u yeesho ama loo isticmaali karo. Balse haddii mid ka mid uu ku bato ama saliidu haddii ay ku badato ama cusbadu haddii ay ku badato waxay ka dhigan tahay shaygaasi ma tegin ama cuntadaasi ma noqonayso cunto cajabisa qofka isticmaalaya ama cunaya. Marka dawo marka aad samaynayso ama compoundingka marka aad samaynayso ingredient walba wuxuu leeyahay xaddi loogu talagalay ama ingredient waxaan ka wadaa shayadan ku dhex jira dawada oo ka kooban tahay. Marka shay walba wuxuu leeyahay qiyaas u go'an. Qiyaastaa mid ka mid ah haddii aad qalato waxay ka dhigan tahay dherigaa cusbada lagu badiyey oo kale. Marka inaad had iyo jeer ka digtoonaato ama aad u fiirsato formulada lagu siiyey ama qaacidada lagu siiyey waa shay lagama maarmaan ah. Marka formulooyinka inta badan compoundingku waa kuwo aad iskaga fudud oo aad calculate garayn karto. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay agabkaagii inaad haysato aad ku diyaarin lahayd dhammaan waxyaalaha aad u baahan tahay. Inaad haysato shay aad ku cabiran karto waxaan lagu siiyey. Marka hore waxaa lagu siinayaa formuladaas baa lagu leeyahay ka dhex diyaari intaas oo micnihii shaygaas ah. Waxaan ka wadaa tusaale gaaban aan soo qaadano. Tusaalahan waa tusaalaha koowaad ee aan halkan ku arkay. Waxay leeyihiin compoundiga of truth paintiga ama loo yaqaano Mandelis paint inuu qof sameeyo ayaa la rabaa. Marka waxa lagu siiyey ingredientigan kala duwan ama waxyaalahan ku dhex jira. Sidaad u jeediin wuxuu ka kooban yahay potassium iodide, iodine, alcohol, water, peppermint iyo glycerin oo add ah ama solvent ah. Xaggan waxaa kugu qoran myth. Marka mid inaan ogaano ayaa fiican. Waxaa jira
waxaa loo yaqaano xaddiga lagu siiyey ama given quantity oo ah xaddiga lagu siiyey. xaddiga lagu siiyey wuxuu ka dhigan yahay inta badan waxaa loo soo gaabsadaa, waxaa lagu daraa kow add baa lagu daba dari karaa, sidoo kale waxaa lagu dabari karaa US. haddii aad labada aragto add ama QS haddii aad aragto waxay ka dhigan tahay waa xaddiga lagu siiyey. okay. add ama QS haddii aad ku aragto formulada dhexdeeda waa maxay? waa xaddiga laga diyaarinayo ama inta badan solventiga ah. marka QS ama add haddii aad aragto maxay? waa xaddiga laga diyaarinayo. sidaas lamida waxaa jira quantity ama given ama quantity required ama required quantity xaddiga la diyaarinayo ama inta badan waxaa loo soo gaabsan karaa mid oo xag hoose ee formulada ayaa lagu qori karaa ama waxaa lagu qori karaa qaybtaas sare oo la odhan karaa prepare baa la odhan karaa prepare 50 ml baa la odhan karaa 50 ml of truth paint. saas waa la odhan karaa. haddii laakiin halkaa laga daayo 50 ml ka laga daayo oo xagga hoose lagu qoro 50 ml waxay ka dhigan tahay san formuladan bay ka dhigan tahay. waxaad diyaarisaa 50 ml oo ah truth paint ama mandalis paint. marka labadaasba waa isku mid. halkan waa laga tegi karaa oo sideeda waa laga tegi karaa, sideeda waa lagu dayn karaa haddii halkaa lagu qoro. haddii kaloo halkaa lagu qori waayana waxay ka dhigan tahay halkaa in lagu qoraa munaasaba. marka waxaa jira xaddiga lagu siiyey iyo xaddiga loo baahan yahay inaad diyaariso. marka waxaa jira wax loo yaqaano factorku waa maxay? waa doorsoomaha isku bedelka qaacido weeyaan. factor waa maxay? doorsoomaha ama shaygan. marka factorka wuxuu leeyahay formula ama qaacidada oo ah factorka wuxuu la mid yahay required quantity RQ oo soo qaadanaa ama midka oo loo qaybiyey given quantity. waad fahamtay soo ma? factorkana inta badan wuxuu la mid yahay required quantity-ga oo ah midka ama waxa looga baahan yahay inaad diyaariso, xaddiga looga baahan yahay inaad diyaariso oo loo qaybiyo xaddigii uu ka koobnaa shaygu. tusaale ahaan factorka wuxuu la mid yahay required quantity-ga kale muxuu yahay? xagga inooguma qorno, waa inaan hoosta tagnaa. waxaan diyaarinaynaa 50 ml of mandalis paint baan diyaarinaynaa. marka waxaan odhanaa formuladan waxay noola sii mid tahay required quantity-geena oo ah 50 ml oo loo qaybiyey given quantity-geena oo add saad ujeedin waad arkaysin add ayaa ugu dambeysa marka lagu leeyahay given quantity-ga. marka xaddiga loo baahan yahay waa imisa? 100 milliliter. saad ogsoon tahay haddii aad aragtid add ama haddii aad aragtid QS waxay ka dhigan tahay xaddiga lagu siiyey markii lotionku dhex jiray ama shaygu ku dhex jiray. marka waxay noqonaysaa 50 ml oo loo qaybshay imisa? 100 ml. markaad 50 u qaybsid 100 qaacidada soo baxaysa imisa noqonaysaa? waxay noqonaysaa 0.5 bay noqonaysaa. marka factorkeena waa imisa? waa 0.5. haddaba muhiimadda factorkan aan ogaano. muhiimadda factorkan wuxuu yahay markaanu factorka soo helo wuxuu sheegayaa in formula kasta ama quantity kasta oo aan ku dhufano kaasi marka ugu dambeysa ina siinayo inuu solutionkeena ama shaygaa diyaari lanagu yiri uu ka kooban yahay 50 ml. marka factorka markaad soo heshid waxaad ku dhufanaysaa qayb kasta oo ka mid ah ingredient-ga qayb kasta oo ka mid ah ayaad ku dhufanaysaa. waxaan ku dhufanaa 2.5 oo lagu dhuftay 0.5. markaan ku dhufano waa imisa? 2.5 times 0.5 is how much? waa imisa? let me isku dhufto 2.5
times 0.5 waa maxay? waa 1.25 gram. ha iloobin 1.25 gram. sidoo kale markaanu 1.25 ku dhufano 0.5 imisuu noola mid noqonayaa? wuxuu inoola mid noqonayaa okay, where is my mobile? wuxuu inoola mid noqonayaa haye 1.25 times 0.5 wuxuu inoola mid noqonayaa 0.625 gram. okay, marka sidoo kale aan ku dhufano kan 0.5 wuxuu inoola mid noqonayaa 2 milliliter. marka factorkeena saad u jeediin mid walba waan ku dhufanaynaa. sidoo kale 2.5 markaan ku dhufano 0.5 wuxuu inoola mid noqonayaa how much? 2.5 times 0.5 waa 1.25 markaan 0.4 ku dhufano 0.5 wuxuu inoola mid noqonayaa 0.2 unitkan ha iloobin sorry xaggan muxuu ahaa ml maadaama ml uu ahaa xaggan sidoo kale ml buu noqonayaa xaggana muxuu noqonayaa ml. sidaas lamid ah markaanu boqolkan ku dhufano 0.5 boqolkan markaanu ku dhufano 0.5 wuxuu inoola mid noqonayaa imisa 50 ml. marka waxaan diyaarinaynaa bay ka dhigan tahay 50 ml maadaama su-aasheenu ahayd diyaari 50 ml. sidan aad u jeediin waxaan kaga shaqeeyey su-aasha koowaad. marka halkan waxaad ka arkaysiin factorka inaad ogaato factorka oo ka dhigan required quantity-ga oo loo qeybshay given quantity. required quantity-ga oo ah xaddiga lagu weydiiyey ama halkaa lagu qoro mid ama halkaa lagu qoro prepare 50 ml halkaa xaddiga la diyaarinayo ama lagu weydiiyey inaad diyaariso oo loo qeybiyo xaddiga lagu siiyey oo qs ay ku jirto ama halkaas ay ku jirto at soma saan hore u sheegnay. marka sidaas ayaad ku diyaarinaysaa. marka han idhaahdo su-aashii koowaad waan ka shaqeeyey han idhaahdo han masaxdo intan qeybta ilan ansarteeda ayaan rabaa. ansarteeda iminka su-aashii koowaad aan kaga shaqeeyey waa maxay? waa tan aan xaggan soo gelinayo. okay, sorry. marka ansarteeda aan rabo inaan soo geliyo ama aan quantity check gareeyo waa inta. marka haddii aan intan qoro waxay ka dhigan tahay inaan su-aasha koowaad ka shaqeeyey. su-aasha koowaad oo ah calculate the amount of ingredient required. si aad u diyaariso 50 ml of truth paint maxaa lagaaga baahan yahay? waxaad u qaybinaysaa kontonkan ayaa waxaad u qaybinaysaa boqolkii yaalay ee lagu siiyey. marka ansarta guud waxay ka dhigan tahay in lagaaga baahan yahay inaad cabirato ingredientiga xaddiga aad heshay iminka markaan factor formuladii ku dhufanay xaddiga aad heshay. potassium iodide waxaan u baahanahay 1.25 gram. iodineka waxaad u baahantahay 0.625 gram. alcoholka 2 ml. waterka 1.25. peppermintiga 0.2 ml. sidoo kale glycerin adka
waxaan u baahannahay 50 ml. marka su-aashaas koowaad waxay ka dhigan tahay waa sidaas aan kaga shaqeeyey. marka waxaad helaysaa factor formulada oo ah inta diyaari lagu